qaar ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland ayaa ka hadlay dacwadda u dhaxaysa ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo madaxweynaha dalka Djibouti waxaana ay tasfiir sharci ka bixiyeen dacwaddaasi kuwaas oo sharci darro ku tilmaamay doonida dawladda Djibouti ay doonayso in loo soo gacan galiyo ganacsade Axmed Cismaan Geele ugu horeyn iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen 312 xeerka abka madaniga iyo 313 tilmaamay inaga Soomaaliland waxaan ognahay iyo Djibouti ma jirto heshiis cad oo labada dawladood ay galeen oo ku saabsan inay is aqoonsadaan xukunnada maxkamadahooda ka soo baxa maalinta ma jirto ilaa taa la helayna oo sida ku cad qodobka 312 wuxuu ka hadlayaa in markii la weydiisanayo aqoonsiga xukun shisheeye jidka wax loo mariyo hab ay leeyahay jidka diblomaasiyadda jidka diblomaasiyadda waa inuu jirtaa heshiis waa inuu jirtaa macnaheedu heshiis diblomaasiyadeed oo ka dhaxeeya labada dawladood oo khuseeya in xukunnada ka soo baxay Djibouti ay dhaqan gali karaan Hargeysa runta wanaagsan waxa la tasdiiqay ee la leeyahay lagu fuliyo logic aqliga saliimka ma dhigayo sharcina ma dhigayo sharci allaaliya sharci dhigaya haba yaraatay in xukunka Djibouti ka soo baxay ee aanu ka garanaysan ee aanu qareenu joogin ee aanu difaaciisa sameeyeen ee aanu wakiilu joogin in halka lagu fuliyo waa xaaran maqtaca waniga ka hadlay ninka burcad jooga ninka Hargeysa jooga hadii maxkamaddu xukunnada iska soo saaraan haddii ka burcad jooga isagoo garanaysan xukunnadaas waa la farax kuma jiro maanta hadii uu hantida Djibouti ay ka haysato maxkamadda Hargeysa ka furta dacwad isagoo hantidiisa ku dacwoonaya Djibouti ugu yeedhay waayay balcida Djibouti ugu yeedhaysa ee oranaysa halkeen u marinayna bahalka waa in safaaradda jirta oo cidda oo dawladda Djibouti halku ka dacweynayo uu helaa oo maxkamadda Hargeysa dacwadda uu ka furto Djibouti ay soo diranaysa waayay halkee samanada maxkamaddu ugu hagaajinaysa halkee ay ugu hagaajinaysa isaga ba jecel dacwad furto halkaan ka furtaale halkee ba ka furta Djibouti ba ka furta haddii Hargeysa dacwadii ka furto xuquuqdeedii huis yaa Djibouti ugu yeelaya dawladda Soomaaliland ma ugu yeeraysa cidda dacweynayo oo cid soo dirta ma oranaysa maxkamadda in fuliyaan mana aha in la ansixiyo sharcina noqon maayo cid kasta oo xuquuq u sheeganaysa Axmed Cismaan Geele dacwad ha ka furto madaniga Hargeysa markii labada wadan ay wada leeyihiin heshiis ama sharci ama legislative kaasoo ku salaysan in labada wadan heshiis uu dhex maro in xukuumadda kama dambaysta ee wadankaasi uu soo rido laga fuliyo wadanka kale shuruucda iyo qawaaniinta wada leeyihiin saadarteed inagii su'aasha koowaad sharci waxay noqonaysaa horta inagii Djibouti ma wada leenahay wax sharciya oo inoo ogolaanaya inaynu xukuumadda Djibouti ka dhacmo Soomaaliland ka dhaca in laga fuliyo wadankaas taasi ma jirto wax profession ama xeer oo la saxay qodobka labaad waxa maadaama aanu jirin wax xeer ama shuruuc oo ka dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliland oo si cad u sheegaya in Soomaaliland go'aankay soo saartay ee kama dambaysta in Djibouti fulin karto Djibouti go'aanka ka dhacay kama dambaysta in nidaamka jarjarayga cadaaladood soo dhamaysta inay fulin karto Soomaaliland taas wax oo laba oo xeerkaas oo xeer soo maray isaga laftiisu jarjarooyinka sharci oo ah baarlamaanka wadankaasi inuu ansixiyay maadaama kaas jirin ma jirayso ama jirto ama wacniyeen sharciyan ma waafaqsana in laga fuliyo xukun ka dhac Djibouti oo ka dhacayo in Soomaaliland laga fuliyo anigu waxaan ka inaan sharcigaas waafaqsanayn shuruucdeena iyo qawaaniinteeda